magaalada Hargeysa waxaan uga soo baxay aniga reerkaygii wata wadankii aan u dhashay ee aan ku dhashay ee aan ku dhaqmay ee aan ku dhistay ee aan ka ahaa nin culimo ah oo ku hawlan dacwadda islaamka iyo tarbiyada islaamka dacwaddii iyo tarbiyadii islaamka aan waday oo ay ku timi carqalad xoogan oo kaga timi nidaamka ka jira goobta iyo dhulkii islaamka ahaa ab iyo awooba boqolkiiba boqol islaamka kusoo dhaqmayay si cad loogu faafinayo diimaha gaalnimada ee kiristaamaynta iyo dhaqan bedel akhlaaqdii lagu samaynayo iyo fawaaxish taasoo markaad ka hadashana adiga aad u cadilan tahay oo dhan dib mudanayso cidda wadana lagu ilaalinayo nidaam cadaaladeed iyo garsoor ayaa ka jira Somaliland maxaa nidaamkaas u aadi weyday oo u dacwoon weyday garsoorka ka jira Somaliland isaga laftiisa hay'adihiisa sirdoonkiisa baarayaashiisa xeeladayaashiisa xabsiyada wax lagu xidho iyo maxkamadihiisu nidaamkani dulmiga uu sameeyo waa meelaha uu ka fulo ee asalka u ah runtiina annagu waxaanu noqonay diin iyo naf iyo ehelba dhibanayaasha u dhiban isaga nidaamkan garsoor laftiisa waayahay hadda xaggee joogtaa oo ay gala hadlaysaa hadda waxaan joogaa meel ka mida dalkaygii Soomaaliya gaar ahaanna ku suntan qaybaha wilaayaadka islaamka ay gacanta ku hayaan wararku waxay sheegayaan oo na soo gaaray inaad joogto gobolka Jubbada Dhexe maxaa ka jira waxa weeyaan dhammaan waxaan dhex mushaaxaya oo dhex socdaan ku tana qulayaama u kala gudbaya wilaayaadka 12 ah ee gacanta ay ku hayaan حركة الشباب المجاهدين شيخ آذن ما وحا أتمد إناد الشباب كل إحنا ولاتد مسوحاد أتمد إناد كمد نقطد الشباب labaduba way jiraan marka hore inaan diinteeda iyo cirdigayga iyo naftayda aan u biday inay halkani markaa u nabadgelyo badan tahay aniga iyo dadka muslimiinta ila midaba isla markaana hawsha halkan ka socota ay tahay hawl caam ah ummadda islaamka ka wada dhaxaysa adduunka guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika mas'uuliyad diineed oo diinta iyo dalka iyo dadka lagu difaacay inay halkan ka jirto oo xaq ah wixii igala gudboon awoodayda ee aan ka qaban karo aqoonteeda iyo cilmigayga iyo kartidaan oo isticmaalayana waan kala qayb qaadanayaa haddii ilaahay idmo waxaa nagu maqaal ah in aad soo doonatay inaad qabato hoggaanka al-shabaab maxaa ka jira arrintaasi waa mala awaal milooyinka lama ala awaalayo anigu cidna lama wadaagin erey noocaas oo kala ah hadday dadku laabtayda waxa ka gooxaya mala awaalayaan xaq uma laha oo laabtayda waxa ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'aala keligii ayaa og laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa wixii mas'uuliyad diineed ay qabsada ee laasim ku noqda anoo diyaar u ah oo ilaahay ugu dhawaanaya laakiin daa'iman ma jecli anigu sacaamad iyo madaxnimo had iyo gooraale banaanka isuma soo taago mana jecli dabci ahaan yaa kula socda oo iminka Hargeysa kaala soo baxay waxay la socdaa ehelkaygii waxay la socdaa awlaadeydii oo waxa weeyaan aan doonayo iyaga laftooda diin iyo cirdi ahaan bayna la badbaadada ka sokow sida muuqata hadda al-shabaab inaad ka mid noqotid ayaa ii sheegtay maxaa ayagana u soo gelinaysaa hawshaas aad iminka ku soo biirtay waxaan u keenayaa inay ku hoos noolaadaan shareecada islaamka iyo maxaakiimta lagu xukumayo kitaabka iyo sunnada ee ka fog dulmiga iyo eexda kuna dhaqmaya cadaaladda iyo garsoorka qur'aanka iyo sunnada inay harkaa hoos harsadaan waxay kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacanta ku haya ilaahoy ayaa abuuray allah subxaanahu wa tacaala arsaaqdooda haya asashooda ilaahay baa haya laakiin mulsam waxaan ku ahay diin ahaan meeshay ku badbaadayaan ayuunbay badbaadada adduunyada iyo aakhirana ku jirtaa waxaa iga warantaa sheekh aadan sidii aad ku soo baxday iyo halkii aad soo martay halkaa ninkii isweydiinayaa sidii aan ku soo baxay iyo halkii aan soo maray waxa ay ku saabsanaanaysaa bad iyo berri iyo hawada midaan ku soo booday birmad rabbi baa igu bayiday boqorkii weynaaye booqasha markaan rabay boqoola ku imi buruntidaydii halkaasay ku soo gaabatay yaa xiriirka idiin sameeyey marka adiga iyo al-shabaab idin dhex maray xidhiidhka waxaa noo sameeyey mabaadida aan iska waafaqnay iyo dheximaanshahaygii iyo kulankayagii iyo waraysigayagii ayaa noo sameeyey hadda halkee hawsha kala qabanaysaa shabaab maxaa kuu qorshaysan waxaan kala qabanayaa oo ii qorshaysan aqoonta iyo fanniga diineed aan aqaano mahaamka waajibkayga saaran in aan ka bilaabo intii awooddayda